qaabab method manasiin kartaa wax lagu akhriyo ma hal mar baa la akhriyaa 100 page iyo wax la mid waa sax weeyaan qofka wuxuu u baahan yahay markuu rabo inuu wax akhriyo boost ayuu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay wax dabada ka riixa Soomaa ha مثالكeenii shalay bay ku jirtay hadaa xoga cajis naftaada ka dareento kutubta ay culimada qoraan akhri ee himada ku gelinaya مثلا تراجمت بعض العلماء او kala akhri waxaad akhrisaa taraajimta ama kutubta laga qoray qaarkeed akhri المشوق كتابك aanu lahayn oo kale hadaad akhriso ama aad akhriso laftatul kabad fi nasiihati alwalad ibn al-jawzi uu leeyahay ama aad akhriso kitaabkiisa sayyidul khatirka ama aad akhriso siyar a'lam an-nubala wax kamid ah ama aad akhriso kitaabkii yani noocaas oo kale hadaad akhriso niyadaadu sare u kacaysa culimadaas aad arkaysa waxa weeyaan in lam takunu mithlahum وعلماء مركي أورانيان وكله تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن تشبه بالكرام فلاحوا كوا وناكسن وكله هدي الله يسكن يقول له قد يدو ولا الليبان يا إن شاء الله مركا جو جاس ولا واحد كون بدل إنسانية هذه علماء ظهر إن راد كود الرعدو قف راد كود الرعنا إلهي ووافجنا يا سبحانه وتعالى المرء مع من أحب سيد النبي عليه الصلاة والسلام والله يا marka hore dib badan baad kala kulmi doontaa sax weeyaan wax walba oo qofku uu rabo inuu gaaro khayr iyo shar dib uu kala kulmaya marka hore qof khamri cabay hadaad aragto iskama bilaabin dhibaato u soo maray marka hore barashadeeda naftirkeeda waxay tahay u baahan tajaarub badan qof qaad cunaya hadaad aragto tajaarub badan bay u baahanta iskama bilaabin hal mar qof hadaad aragto dhinaca kale wanaagana meel gaaray iskama bilaabin mid walba waa barasho weeyaan خيرك يا شرطه وبرشه ويان ساد يسو برتا ايادنا u gaaraysa ilaahi subhanahu wa ta'ala khayrka ku bartaa inaga yaro يا لا لا لا